Assalamu alaikum. This is me, Dr. Osama. I'm an non-invasive cardiac specialist. I'm working in Somali Sudani Hospital. Today we are going to announce that we introduce a new service for hypertensive patients. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور أسامة محمد وحنا هاي تخصص له وضمه وأنا كل شقينين حب قلينا non-intensive cardiac specialist. ما أنت وحن سر رسمي أو شاعنينا أذيق عصوب أو لو باروخ لغنا معموله عداديس كديجا hypertension كا. This is ambulatory blood pressure monitoring. It's a 24-hour monitoring for patients with hypertension or for patients undiagnosed hypertension. This كورميرها عداديس كديجا 24 ساعة. Ambulatory blood pressure monitoring وباريتان قارة أو عبره عداديس كديجا بوكانكا si joogta مدة 24 ساعة. This test will help the doctor for two purposes, either for diagnosing the patient and for patient who is already hypertensive. waxaana loo kala qaadaa laba xaaladood oo muhiim ah lagu ogaado bukaanada loogu shakisan yahay cadaadiska dhiigga hypertension-ka laakiin laga yaabo inay muujiyaan cabir caadi ah markay yimaadaan isbitaalka sida cadaadiska dhiigga ee laga baqo in lagu qiimeeyo laguna hagaajiyo daaweynta bukaanada horey loogu ogaaday hypertension-ka gaar ahaan kuwa u baahan in ka badan hal daawo si cadaadiskooda dhiigga u noqdo mid normal ah adeegani wuxuu bixinayaa sawir buuxa oo ku saabsan sida cadaadiska dhiigga bukaanku isku bedbedelo maalinkii iyo habeenkii taas oo ka caawinaysa dhakhaatiirta inay go'aan sax ah ku saleeyaan xaaladda bukaanka. So this machine will help you in diagnosis and in control. And today we are going to show you how it works and how we can apply it to the patient. This will be very good for hypertensive patient because hypertension is what we call a silent killer. Machine waa mid yar oo la qaadan karo waxaana lagu xiraa gacanta waxa uu si toos ah u cabiraa cadaadiska dhiigga muddo 24 saacadood. Bukaanka waxaa lagu dhiirigelinayaa inuu sii wato hawlihiisa maalinlaha iyo jimicsigiisa caadiga ah inta uu mashiinku shaqeynayo si aan u fahanno sida cadaadiska dhiiggu u shaqeynayo. maadaama cadaadiska dhiigga loo yaqaano dilaaga aamusan sababta la xiriirta inuusan calaamado lahayn balse uu sababo dhibaatooyin halis ah waxaa lama huraan ah in si firfircooni ah loola socdo xaaladda bukaanka. maanta sidoo kale waxaan idin tusi doonaa sida mashiinkani u shaqeeyo iyo sida loogu xiro bukaanada. waxaan aaminsanahay in adeegani uu noqon doono tallaabo weyn oo lagu horumarinayo daryeelka bukaanada qaba hypertension-ka ama dhiig karka ee bulshadeena.